السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركل السود وده أدي هذا وما سنتهين ما أنت واحد وأنا أفرت بشك وبعد جانوري سنة كلا بدأ كون إيش لحية لباتنك مقال كان وحن ربائنا ندي كل وداجو وزارة أرمها الدبادة مريكان كه أو أمريكا سوسارست فيزياش لسينا يو ودمدا ترافل بانك وسامين يو مدحوين ترام وكسر رجي sharcigan waxa uu si rasmi ah u dhaqan galay 1 bishan January oo maalintii Khamiista ku beegnayd haddaba sidoo u saameynaya wadamada travel bank uu saameynayo hadda kadib dacwado ma loo xareyn karaa qof baasaboor Soomaaliya wato viisana ma loo soo saari karaa arintaasi ayaan idin la wadaagaya iyo sidoo kalena waaxda dawladda Mareykanka u qaabilsan immigrationka oo iyaduna in arrimahan amar ka soo saartay isla 1 bisha waxana wasaaradda amniga gudaha gabi ahaanba ay hakad gelisay in wax application ah wadamada travel bank lagu soo rogay hadda kadib in dadkii asylum-ka oo magangelya doonka ahaa dadkii viisayaasha haddaad qof viisa u xareynaysay green card-ka dadkii lahaa iyo dhammaanba in hakad la gelinayo arrimahaasi oo waan idinla wadaagaya madaxweynihii Venezuela oo habeen hore laga soo qabtay sariirtiisa caasimadda waddanka Venezuela ee Caracas xalay ayaa la keenay Mareykanka waxaana lagu xiray magaalada New York bari ayaa la filayaa in maxkamadda la soo taago madaxweyne ku-xigeenkiisa ayaa xukunka la wareegtay waxayna arintaasi ku tilmaantay afduub madaxweynahana si degdeg ah lagu soo daayay ayay tiri laakiin xog wasiirka amniga gudaha Mareykanka ayaa iyaduna digniin u dirto waxay tiri waxa aan ku farayna waa inaad yeeshaa hadii kalena waa inaad meesha ka wareegtaa wixii ku dhacay Maduro ayaa kugu dhici kara maxay tahay shidaalka loo kala cararayo ee waddanka Venezuela ku jira shidaalka ugu badan oo ku jira ayaan idin la wadaagaya sidoo kale balse marka hore soo dhawaada waanida fursadan qaaliga ka faa'iideysa hadii aad qurbaha ku nooshahay jeceshayna awlaadaada doonaysa inaad ku barbaariso barashada hadalka Ilaahay waxaan ku hayaa macadka Abidalxa barashada Quraanka Kariimka ee wax ka dhigaan macallimiin aqoon xeel dheer oo la fidinta diinta Islaamka waxay muddo kooban awlaadaada ay kugu xifdiyaan barashada xifdinta Quraanka Kariimka iyo barashada culumta Quraanka Kariimka iyadoo sidoo kale ay baranayaan barashada asaasiyaadka shariicada Islaamka bishan waxa la qaadanayaa arday kooban ee haatan ka wac taleefanada shaashada kaaga muuqda banateen waa معدك Abidalxa barashada Quraanka Kariimka umrada sanadkan Salaama Group waxay idin haysaa adeegyo cusub waxaana kamid ah adeegyadaas 1 hoteello u dhow labada xaram ee Makka iyo Madiina loogana lugeyn karo xilliyada salaada 2 gaadiid aad ku soo booqan doonto goobaha muqaddaska ah ee lagu xusayo taariikhda Islaamka 3 baridda qaabka loo guto acmaasha umrada 4 umreynta waalidka ama walaalka oo geeriyooday ama aan awoodin 5 haddii aad tahay qof qaba baahi khaas ah xagga caafimaadka waxaan ka caawin doonaa gudashada acmaasha haddaba kusoo dhawow qiimo jaban oo ku raali gelin doona faafahintaasi dheer fadlan waa WhatsApp number eber 9645459284 mahadsanidin waalidiinta Soomaaliyeed ee jecel waxbarashada waxa la ogeysiinayaa looguna bishaareynayaa in maxadka waxbarashada ee Somali Islamic Online oo ku hayo barnaamij waxbarasho diimeed ah oo ka caawinaya in adiga iyo ilmahaaguba aad si fudud u barataan Quraanka iyo culumta shariicada maadooyinka dugsiga laga baranayna waxa kamid ah Quraanka hikaada ahadiista ducooyinka tarbiyada asaasiga ah ee ilmaha tafsiir iyo qaybaha kale ee culumta shariicada qaabka waxbarashada dugsigaarina waa hab online ah oo waxbarashada aad ku qaadanaysan waxaad kala xiriiri kartaa Gmail-ka iyo lambarada shaashada kaaga muuqda waxaan ogeyn in maamulka madaxweyne Trump ay travel ban markii hore 19 wadan oo Soomaaliya ay ku jirta ay ku soo rogeen markii dambana 20 wadan dib looga daray oo 39 wadan ay noqdeen arintaasi marka hadda website-ka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa qoraalkan lagu soo qoray 19 bishii hore ee December ayuu soo baxay sida aad arkaysaan laakiin waxa uu si rasmi ah u dhaqan galay amarkan 1 bishan January oo hadda aynu ku jirno oo maalintii Khamiista ah ku beegneed waxa ciwaan looga dhigayba in la joojiyay soo saarista in viisayaal loo soo saaro ama dawladda Mareykanka ay siiso dadka ajnabiga ah si loo ilaaliyo ammaanka waddanka Mareykanka ayaa ciwaan looga dhigay marka waxay leeyihiin iyadoo la raacayo wareegtadii madaxweyne Trump uu saxeexay oo tirsigeedu ahaa 10998 oo lagu xadidayay dadka soo galaya ajnabiga ah ee Mareykanka soo galaya si loo ilaaliyo ammaanka Mareykanka taasi waxay si rasmi ah u dhaqan gashay
kowdii bishan January oo khamiistii ku baagnayd sanadkan 2026 12 iyo 1 daqiiqo saqda dhaxmarkeed markii sanadka cusub uu dhashayba wareegtooyinkaasi si rasmi ah ayay u dhaqan galeen marka Mareykanku waxa uu si buuxda ama qayb ahaanba u joojinayaa in Mareykanka ay soo galaan oo wax visa ah loo soo saaro dadka u dhashay 39 kaasi wadan iyo sidoo kalena shakhsiyaadka iyaguna ku safraya dokumentiyo ay soo saareen mas'uuliyiinta Falastiin iyagana sidoo kale waa lagu daray waxa sidoo kalena ay arintan ku jirta in dadka iyagu si buuxda loo joojiyo Mareykanka inay soo galaan oo 19 wadan ah madaxweynaha wareegtadiisina ku xusneed ahay 1949 in si buuxda ay u dhaqan gashay wareegtadaasi oo madaxweynuhu uu soo saaray 19 kaasi wadan waxaan ilaalinaynaa ayaa lagu leeyahay qoraalkan wasaaradda arrimaha dibadda ee website-keeda ku soo qortay wadankeena ayaan waxaan ka ilaalinaynaa in dadka wadamadaasi ka imaanaya ay si qaldan ay u isticmaalaan isla markaana waxaan diiradda saaraynaa in si joogto ah baaritaan aan ugu sameeyno shakhsiyaadka loo ogolaado in viiso ay Mareykanka ku yimaadaan kadibna khatar gelinaya ammaanka qaranka iyo waliba ammaanka dadweynaha Mareykanka laga bilaabo marka kowdii bishan January ee sanadka 2026 saacadu markay ahayd 12 iyo 1 daqiiqo saqda dhexe oo sanadka cusub uu dhashay iyadoo la tixraacayo wareegtadii madaxweynaha oo ahayd 1998 waxaa la xadiday in Mareykanka ay soo galaan dadka ajnabiga ah si loo ilaaliyo ammaanka wadanka Mareykanka waxaana wasaaradda arrimaha dibadda ay si buuxda u joojisay in wax visa ah loo soo saaro dadka u dhashay 19 kaasi wadan marka sidaad arkaysaan qofkii Soomaaliya oo baasaboor Soomaaliya loogu dacwoonayay oo ka hor sanadka cusub intii uu san dhalan fiisihiisa helay micnaheedu waxay tahay Mareykanka waa uu imaan karaa laakiin wixii ka dambeeyay kowdii bishan January qof baasaboor Soomaaliya wato visa lama siinayo oo gabi ahaanba waa la joojiyay ama odogaada ha ku dacwoodo ama xaaskaada ha ku dacwooto ama waalidka ha ku dacwoodaan gabi ahaanba waa la joojiyay marka 19 kaasi wadan sida aan hore idinku sheegaba waa Afghanistan Burma Burkina Faso Chad Republic of Congo Equatorial Guinea Eritrea Haiti Iran Laos Libya Mali Niger Sierra Leone Somalia South Sudan Syria iyo Yemen waxaa sidoo kale in laga reebo sidoo kale ku jirta dadka iyaguna Falastiiniyiinta dokumentiyadooda ku safraya marka waxaa laga reebaya oo exception ka ah oo loo ogolaanaya Mareykanka inay soo galaan dadka oo diblomatika ah oo viisayaal diblomaatiga ama sidoo kale kuwa kale oo rasmi ah oo dowladda Mareykanka ay u ogolaatay ku safraya sidoo kalena dadka iyaguna immigrant visa haysta oo isir ahaan ama diin ahaan wadankooda uga soo cararaya sida Iran oo kale oo wadankaas Iran oo kaliya ayaa taasi loo ogolaaday dadka dual citizenship haysta oo iyaguna laba baasaboor haysta marka baasaboor Kenyan ama Ethiopian haddii aad haysato micnaheedu waxay tahay waa lagu dacwoon karaa laakiin baasaboorka Soomaaliga ayaa la diidaya sidoo kalena ayagu kuma jiraan dadkaasi qofkii dual citizenship oo baasaboorkaasi kala nationality kala ah isagu suspension kaasi kuma jiro oo banaanka ayuu ka yahay dadka sidoo kale special immigrant visa oo dadka dowladda Mareykanka la shaqeeyay ku Afghanistan iyo laga soo qaaday iyaguna kuma jiraan dadka iyaguna ciyaaraha koobka adduunka iyo Olimbikada Mareykanka lagu qaban doono sanadka soo socda iyaguna ka qayb galaya kuma jiraan dadka green card ka haysta oo lawful permanent residents kana iyaguna kuma jiraan oo dadkaas way safri karaan oo waa ay soo laaban karaan walow hadda aan kula talinayn qof green card haysta in wadanka Soomaaliya uu safro wadamadan kale Afrikaanka waa tagi kartaa laakiin markaad Mareykanka ku soo laabato secondary screen wax la yiraahdo ayaa lagu marin karaa oo mar kale ayaa baaritaan dib lagu sameyn karaa sidoo kalena waxaa jirta laga soo bilaabo kowdii bisha January oo khamiistii ku beegnay sanadka 2026 saqdi dhexe sidoo kalena waxaa jirtay in wadamadan kale oo iyaguna la xadiday in Mareykanka ay soo gali karaan kuwaasi si buuxda ayaa looga mamnuucay kuwana sidoo kalena waa la xadidaya dadka viisayaasha la siin karo wasaaradda arrimaha dibadda sidoo kale waxa ay leedahay wadamadan kale oo iyaguna 19 oo ay kamid yihiin Angola Antigua and Barbuda Benin Burundi Cote d'Ivoire oo Ivory Coast ah Cuba Dominica Gabon iyo sidoo kalena Gambia Malawi Mauritania Nigeria Senegal Tanzania Togo iyo sidoo kalena Tonga Venezuela Zambia iyo waliba Zimbabwe iyagana waxaa laga mamnuucaya dadka non immigrant-ga B1 iyo B2 oo viisayaasha booqashada ah iyo sidoo kale viisayaasha F iyo M iyo J oo studentska dadka wadamadu ay isweydaarsadaan ardayda wadamadaasi kala aadaya
iyo sidoo kalena visitor visahaasi in gabi ahaanba laga mamnuucayo marka iyagana laga reebo dadkii horey idinku soo sheegay iyaguna dadka labada baasaboor haysta kuwa Iiraan ka imaanaya iyo sidoo kale special immigrant visa-ga iyo dadka iyaguna ciyaaraha ka qaybgalaya iyo kuwa green card ka haysta iyaguna kuma jiraan marka wadamadaasina sidoo kalena iyagana viisayaashaasi ayaa laga mamnuucaya laakiin Soomaalida dadka baasaboorka Soomaaliga haysta waxa la leeyahay 1 bisha January wixii ka dambeeyay wax visa ah lama siinayo qof baasaboor Soomaaliya haysto sida ku cad warkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka sidoo kale waxay ku jirtaa in Turkmenistan ayaa iyaguna ku jira oo iyaguna immigrant visa laga mamnuucay marka waxaa jirta sidoo kale wareegtada madaxweynaha waxaa ku qornayd in nuucyadan kala duwan ee viisayaasha iyaguna sidoo kale dadka haysta laga mamnuucayo in Mareykanka aysan soo gali karin wareegtadan waxaa ku jira sidoo kale immediate family immigrant visa waa dadkaadii adiga ku dhawaa oo qoyskaada aad u dacwoonaysid sidoo kale waa ay ku jiraan IR ayaa kamida CR1 ayaa kamida IR2 ayaa kamida CR2 ayaa kamida IR5 ayaa kamida oo adoption visas ka la yiraahdo ilmahan aniga ayaa soo korsaday hadii aad leedahay IR3 ayaa kamida IR4 ayaa kamida IH3 ayaa kamida IH4 ayaa kamida iyo sidoo kalena Afghan special immigrant visa dadka iyaguna ku imaanaya saddex wasaaradood ayaa waxay iska kaashanayaan dadka viisayaasha loo ogolaan karo wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda amniga gudaha saddexdaasi wasaaradood waxay leeyihiin shakhsiyaadka iyagu danta ay Mareykanka ugu jirto case by case ayaa loo fiirinaya macnaha qofkii dawladda Mareykanku ay u aragto in dan ay iyada ugu jirto oo ay ka faa'iideysan karto viisaha waa loo ogolaanaya ayaa la leeyahay marka saddexdaasi wasaaradood ayaa arrintaasi iska kaashanaya waxay leeyihiin wareegtadan madaxweynaha oo tirsigeedu yahay 10998 waxa ay qabanaysaa dadka ajnabiga ah oo iyagu hadda ku sugan banaanka wadanka Mareykanka oo aan joogin laga soo bilaabo taariikhdaasi kuwaasi oo aan haysan visa sax ah laga soo bilaabay 1 January sanadkan 2026 hal daqiiqo saqda dhexe wixii ka horeeyay dadka aan haysan visa sax ah oo dawladda Mareykanka ay siisay wadanka banaankiisana joogo ayaa wareegtadan ay qabanaysaa marka haddii visa lagu siiyay oo aad wali aadan soo safrin laakiin viisahaada uu sax yahay wali waa soo safri kartaa macnaheedu waxay tahay dad fara badan ayaa jira viisaha 6 bilood ayaa inta badan qofka la siiya marka viiso ayaa lagu siiyay sanadka cusub ee hadda 2026 inta uu san dhalan walina Mareykanka ma aadan u soo safrin macnaheedu waxay tahay marka Mareykanka waad u soo safri kartaa haddii viisahaada sax u yahay oo dawladda Mareykanka ay ku siisay marka waxay leeyihiin dadka ajnabiga ah oo xitaa haddii ay joogaan wadanka Mareykanka banaankiisa isla markaana haysta visa sax ah in wareegtadan madaxweynuhu ma qabanayso waxay leeyihiin visa la soo saaray ka hor 1 bishan January taariikhdu markay ahayd sanadka cusub 12 iyo hal daqiiqo viisahooda ma laga laabanayo iyadoo wareegtadan la tixraacayo sidaan idin sheegay marka haddii viisahada hore lagu siiyay Mareykanka waad imaan kartaa walina aadan u soo safrin oo ka hor bisha January lagu siiyay sidoo kale waxay leeyihiin dadka viisayaasha codsaday oo iyagu wareegtadan aysan qabanaynin dadka wadamadaasi aanan ka imaanin waaye iyagu wali visa applicationskooda waa ay soo dirsan karaan isla markaana interview waa ay ballansan karaan laakiin waxaa laga yaabaa in loo diido in viiso loo soo saaro ama loo ogolaado inay Mareykanka imaadaan marka waxay leeyihiin wali dadka wadamadaas 39 aan ka mid ka ahayn viisa waa ay soo dalban karaan interviewna sidoo kale waa ay ballansan karaan laakiin waxaa laga yaabaa inaan viisahana la siinin isla markaana aan loo ogolaanin inay Mareykanka imaadaan marka sidaas ayaa sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda website-keeda qoraalka ku qoran uu yahay waxaa jirta sidoo kale wasaaradda amniga gudaha in ay tiri ilaa iyo 20 wadan iyaguna sidoo kale oo wareegtadaasi ay saameynayso laga bilaabo 1 bishan January waxaa hakad la gelinaya dadkaasi oo dib u eegis lagu sameynaya in viisayaal ay dadkaas application ay soo dirsadaan isla markaana la aqbalo USCIS sidoo kale 2 bisha oo jimco ahayd waraaqdan ay soo saartay 5 bog ka kooban oo waxay leedahay waxaan hakad gelinaynaa oo dib u eegis aan ku sameynaynaa dhammaanba dadka applicationada soo xareystay marka haddii aad Soomaali ahayd oo application oo ku xareysnaa USCIS wali approve aysan ku siinin ama xitaa kiiskaadu uu marayay National Visa Centerka waxay leedahay wasaaradda amniga gudaha arrintaasi dib u eegis ayaan ku sameynaynaa dadka green cardka uu xareysan yahay dadka citizenshipka uu xareysan yahay iyo dadka asylumka oo megaliyonka waa dadka wadanka sharci darrada ku soo galay dhammaantoodba waxay leeyihiin dib u eegis ayaan ku sameynaynaa marka waxa ku qoran
qoraalkan ay soo saartay waaxda USCIS ta in sidoo kale ay qorsheynayaan in dib u eegis ay ku sameeyaan dhammaanba applicationada dadka soo galootiga ah oo ka yimid wadamadaasi laga soo bilaabo sanadkii 2021 ilaa iyo xitaa haddii kiiskaada weli uu bandin yahay isla markaana aan weli fiisa la siinin dadka aad u dacwoonaysay oo xitaa 2021 aad xareysay arrintaasi dib u eegis ayaa lagu sameyn doonaa dadkaasi markii hore travel bank 19 wadan lagu bilaabay haddana 39 wadan la kaarsiiyey ugu dambeyntii madaxweynihii Venezuela oo habeen hore laga soo qabtay caasimadda wadanka Venezuela ee Caracas xalay ayaa la keenay Mareykanka waxaana lagu xiray xabsiga ku yaala magaalada Brooklyn oo ku yaala Metropolitan Detention Center waxa la filayaa bari in la soo taago maxkamad waxaana madaxweyne ku xigeenkiisii oo la yiraahdo Delcy Rodriguez ay leedahay howlgalka Mareykanku ay ka sameeyeen wadanka Venezuela waxa uu ahaa afduub sharci darro ah oo madaxweynahaasi lagu afduubtay degdegna waa in lagu soo daaya sidoo kale waxay ku baaqaysaa dadka reer Venezuela in wadooyinka isugu soo baxaan ay mudaharaadaan laakiin waaba isku soo baxeen waxay mudaharaadayeen in xukunkii Maduro meesha laga tuuray xitaa dadka Venezuela ku dhaqan iyo wadamo kala duwan oo caalamka mudaharaad ayay sameynayeen laakiin wasiirka amniga gudaha ee Mareykanka Christine Noem ayaa iyaduna digniin u dirtay madaxweyne ku xigeenkaasi Trump waa kii shalay yiri inaga ayaa wadankaasi maamulayno marka waxay leedahay waa in amradeena aad raacdaa Trump xitaa shalay shirka jaraa'id waxa uu ka sheegay in wasiirkiisa arrimaha dibadda iyo madaxweyne ku xigeenku ay qadka telefoonka ay ku wada hadleen marka waxa anagu aan ku yeerina qaado hadii kale wixii ku dhacay Maduro ayaa kugu dhacayo ayaa la leeyahay laakiin sababta horta Venezuela loo kala cararayo maxay tahay Venezuela waxa ku jira shidaalka ugu badan ee ciriinka oo kayd ah waxaana ku jira ilaa iyo 3.3 bilyan oo fuusto oo shidaal ciriina Saudi Arabia ayay ka badan tahay Iran ayay ka badan tahay Canada ayay ka badan tahay Iraq ayay ka badan tahay Trumpna waa kii shalay yiri shirkadaha Mareykanka ee shidaalku waa inay tagaan Venezuela oo dib u dayactir ay ku sameeyaan goobaha shidaalka oo iyagu muddooyin aan dayactir lagu sameeynin marka sababta loo kala cararayo oo loogu kala cararayo wadanka Venezuela waa shidaalkaasi darteed Venezuela waxa hadda ay soo saartaa waxa la leeyahay 1 milyan oo fuusto maalintii Saudi Arabia ayaa iyagu waxay soo saaraan 11 milyan halka Mareykanku 22 milyan ay soo saaraan marka shidaal fara badan waa uu ka buuxaa laakiin waxaan jirin qaabkii loo soo saari lahaa maadaama wadankaasi qabateen min muddo ay saaran marka waa sababtaasi shidaalkaasi farax badan oo 3 bilyan oo fuusto oo shidaal ciriina oo ceelashaasi dhex fadhiyo oo Mareykanku uu doonaya inuu ka faa'iideysto isla markaana uu soo saarto wasiirka cadaaladda Pam Bondi waxay tiri madaxweynaha wadanka Venezuela waxa si buuxda cadaaladda ugu mari doona cadaaladda Mareykanka ayuu mari doona ciidda Mareykanka ayuu ku mari doona maxkamadaha Mareykanka ayuu ku mari doona xalay waxa la arkaya laba farood isagoo taagaya markii diyaaradda laga soo dajiyay isla markaana xabsiga la geeyay isla markiina madax ayaa laga xiray ninkaasi habeen hore waxa uu seexday isagoo madaxweynaha haddana waa maxbuus oo xabsi ayuu ku jiraa marka hadda waxa la yiri adduunyadu waa harka labadiisa gelin aad iyo aad u maasantiin asxaabta intaan markale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waro idin la sida iyo nabadgelyo